بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa برنامجي عادي ها anigoo دكتور كمال داهر عاشور kana mid ah shakhsiyaadka u ololeeya bulshada beelaha Gabooye especially Somali minority groups ama Somali minority activities waxaan doonayaa maanta inaan waxoogaa yar dul istaago in Somaliland beelaha Gabooye cadaalad inta leeg bay ka heleen maamulkii run ahaantii isaga dambeeyay ay kamid ahaayeen xukuumadii Cigaal iyo xukuumadii Riyaale iyo xukuumadii Sirayo waxaan soo yara qaadayaa qodob yar oo kooban madaxweyne Cigaal ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waxa uu kamid ahaa halyeeyadii asaaska u jeexay inay beelaha Gabooye golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka xubin ka yeeshaan markii hore ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waa laga soo gudbay doorashooyin iyo xisbiyeen iyo asxaab badan baa dhacday runtii xukuumadii Daahir Riyaale oo xukuumadii labaad saddexaad ahayd waxa ay ku guuleysatay iyadoo Somaliland ay ku dhici kar weeyday kuna dhiirin kar weeyday in beelaha Gabooye oo ah Somaliland citizen ah oo dalka xuquuq la siman beelaha kala ku leh in ay madaxweynayaashii ka horeeyay ku dhiirin waayeen inay golaha wasiirada ay xubintii ay ku lahaayeen ay ku soo daraan inkastoo Daahir Riyaale dadaalkiisu aanu yareyn haddana wuxuu ku soo daray xubintii golaha wasiiradu wasiir ku xigeen ku soo daray haddaba maxaa la rabay jaranjarooyinka nooca isaga soo sokeeyay in xukuumadda kulmiye iyo ka dambeysay tii Daahir Riyaale in role intee leeg bay ku ka qaadatay arrinta noocaasa maxayse ku bedeshay arrintii nooca ahayd waxaynu wada ognahay xukuumadda Daahir Riyaale xukuumadda Sirayo iyo xisbiga kulmiye waxa aan kamid ahaa shakhsiyaadkii madaxweyne Sirayo kula kulmay Sheraton Hotel Addis Ababa waxa la socday runtii marka xaqiiqo laga eego Xirsi iyo Cabdilaahi Omar oo hadda Muqdisho jooga oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa runtii wuxuu iga ballan qaadeen ama iga ballan qaaday special Xirsi iga ballan qaaday in marka ay imika noqdaan isagii madaxweynuhu way sag fadhiyeen marka ay imika noqdaan in ay magacaabi doonaan xubintii u qalantay reerka xubintii ay lahaayeen runtii inkastoo waqtigaaba ay iga codsadeen inaan anigu tago dalka waqtigaana anigu aan Ethiopia waxbarasho u joogay way ii suuroobi weyday inaan tago laakiin waan ku yara taageeray waxaan ku yiri cid kale reerka u magacaabo aniga oo markaa uu kala dhigay in golaha guurtida beesha Muusodhariyo ku jirto golaha wasiiradana markaa beesha Birmaal oo Cali Cabdisaayiq ahaayo golaha wasiirada wasiir ku xigeenka howlaha guud ahaa uu ku jiray beesha Madhibaana ay u baahan tahay in xil ay ka hesho si saami isku siman loo helo saddex beelood si ay tabashada beesha Gabooye u yaraato waa la soo cararay waa la soo noqday waxa la magacaabay la taliyaha beelaha la haybsooco barka baa loo magacaabay okay ma waxa ay dhiirigelisay cunsuriyad iyo xisbiga kulmiye cuqdadii iyo naxligii iyo xumaantii uu beesha Gabooye u hayay buu ifka u soo saaray oo uu soo saaray in desktop ka soo dhigay waayo xaq waxay u lahaayeen wasiir buu waxay xaq u lahaayeen in la taliyaha beelaha la haybsooco waa shame position waa mid aad iyo aad ceeb u ah oo laga xishoodo ayuu ahaa waxaase ka darnay dadka qaatay baa ka darnaa run ahaantii haddaba waa yahay cadaalad intee leeg bay xukuumaddii kulmiye beelaha Gabooye ugu xaqsoortay dilalkii dhacay iyo wixii dhacay horaan uga hadlay ku noqon maayo ay uga xaqsoori weyday cadaalad darrada ku tirsadeen beelaha Gabooye waxaan rabaa inaan ka hadlo si kooban uga hadlo aqoon-yahanada beelaha Gabooye ee ka soo baxay jaamacadaha Somaliland intii xukuumadda kulmiye haysatay role intee leeg bay ka heleen shaqaaleyntii iyo kuraastii iyo mansabkii iyo saami qaybsigii dawladda waxaynu wada ognahay beelaha Gabooye inay jiraan dhowr dhalinyaro ah oo jaamacada ka baxay oo shuruucda iyo maamulka iyo maareynta kala bartay qaarkood engineer yihiin haddaba waa yahay kuwaasi ma noqdeen kuwo ka helay positionkii ay xaqa u lahaayeen xukuumadda Somaliland ma yihiin kuwo tacabkii iyo waqtigii ay ku lumiyeen aqoontaasi boos u qalma inay ku helaan xaq bay u lahaayeen ama ku heleen waa maya waxaan wada ognahay inamada looyarada bartay law departmentiga bartay
in ay wasaaradda cadaaladda qaarkood shaqaale staff member staff ay ka yihiin oo aanay xataa lagala masuugay in position agaasimo waaxeedii la siiyo. waxaynu ognahay in garsoorayaasha garsoorka hay-adaha garsoorka inaanay total ayna kuga jirin wax beelaha gabooye ka mid, hadday tahay maxkamadda degmada Hargeysa, hadday tahay maxkamadda gobolka Hargeysa, hadday tahay maxkamadda sare ee Hargeysa, inaanay marnaba ayna ku jirin. waxaynu wada ognahay toddobada garsoore ugu sareeya maxkamadda sare inay toddobadaas midna aanu ahayn beesha gabooye aan ku jirin. okay waayahay dulmiga intaa leeg ee siyaasadaysan waxa ay beesha gabooye tirsanaysay dulmi dhaqan oo bulsho oo lagu hayo. xukuumadda la rabay inay u xaq soorto oo ay xukuumaddu noqoto xukuumaddu xaq soorta may u xaq soorin. taasna beelaha gabooye waa dulmi labaad oo ay kala kulmeen dowladdii iyo xisbigii kulmiye. run ahaantiina waxaynu wada ognahay xisbigan kulmiye in ay siyaasadiisa iyo policygiisa uu yahay mid ku cad in beelaha gabooye dulmi iyo faquuq iyo cadaawad gaara ay u hayaan. taa marageeda marka aan sidaa leeyahay bulshooyinka reer Somaliland way daawanayaan in marageedu uu cad yahay, waa cadaan, sababtoo ah dowladdii Somaliland baa dulmi iyo cadaalad darro ku haysa beelaha gabooye, shacbigii baa ku haya, haddana xisbiyadii baa maanta xisbi xaakimkii ayaa maanta haddana kusii darsamay. dhibaatada iyo miisaanka iyo masiibada intaa leega beeshaa ku habsatay waa mid aad u ayaan darro ah. marka aan xisbiga kulmiye soo hadal qaadayana dad badan waxay isweydiinayaan Kamaal waa nin mucaarad ah. runtii waa run, mucaarad baan ahay. waxaan mucaarad ku ahay roolkii iyo rightskii aan Somaliland ku lahaa baan bulshadayda u raadinaya. taasi ma aha mid dhaliil ay noqon karta. waxaan ognahay xisbigan kulmiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo Muuse Biixi. Muuse Biixi waa nin reer Somaliland ah. علي عبد الصايغ وانا رئيس Somaliland, برخد وانا رئيس Somaliland, أنا رئيس Somaliland. سببت أن أي كوكس بدين دلميجا إن قدومية حسبيجا كلمية هنك سياسة ده جانك دلك أسو ترتمي إن أو يسقو personally abuse أو سمايا أو ولي بنا أمضن أو قبيل دن أو عنصرية ده أو ظلمه محق إله هيدا hadduu se isagu gafay oo uu dulmiga sameeyay miyaanay jirin garab iyo dad qabta isaga oo bulshada dhan ee uu kula kacay lafjabka apologize ka bixiya. waa dulmi saddexaad oo ay ka sii galeen beelaha uu ka soo jeedo Muuse Biixi oo aan raali gelin iyo tabashadaas beesha gabooye ay tabatay ee dulmigaas ay ka tabatay hoggaanka sare iyo ninka sare inay ay ka weyday run ahaantii tabasho raali gelineed bulshadii uu ka soo jeeday Muuse Biixi. Muuse Biixi laftiisu muu noqonin nin apologize ka bixiya arrintaas. Muuse Biixi waxaynu wada ognahay anigu waxaan la xiriiray shakhsiyaad waaweyn oo ka mid ah hoggaanka Subeer Awal. arrintaana aan kala hadlay waxay ii cadeeyeen oo run ahaantii ay ii cadeeyeen inaanay arrintaasi ahayn arrin Muuse lagala hadli karo oo Muuse keligii tiisu ay u caddahay. waxayse igu raali gelinayeen inaanu Muuse idinkoo keliya maaha Muuse cid walba saas ku sameeya. waad ogeydeen beeshii Ayuub waxaad ogeydeen kula hadlay, berbero waxaad ogeyd kula hadlay, tiro noocaas la ii soo qaaday. dan anigu waxaan go'aansaday marka war roolka anigu minority right activities baan anu Somaliland darbaan xaq u leh marka aan right-kayga ka waayo in aan mucaarado xaq baan u leeyahay. waxaan xaq u leeyahay in bulshada society dhan baan anagu u hadlayna oo aan cid u hadasho haysanin. society-ga dhan anagu markaan u hadlayno xaq baan u leenahay dhaliil kasta iyo meel kasta oo aanu right-kayaga ka helayno ama aanu right-kayaga ku iftiiminayno inaan dhaliishiina geyno xaq baan u leenahay. hadday United Nations ka noqonayso, European Commissions ka noqonayso, Arab League ka noqonayso, African Union noqonayso, IGAD noqonayso, iyo welibana International Human Rights Organizations ka noqonayso. waananu sameynaa dadaalkeeda, waanu ku jirnaa, waananu wadnaa, horeyna waanu u sameynay. runtiina waa mid masiibo ku noqon doonta jiritaanka Soomaaliya haddii arrintaa aan waxba laga qaban. waxaan dhaliil weyn usoo jeedinayaa bahda culimada Somaliland. waa hoggaankii diinta Islaamka. war haddii wasaaradii cadaaladda, wasaaradii diinta iyo hay-adihii dawladda iyo garsoorkii dawladda beelaha gabooye ku dhex dulman yihiin, culimadii maxay uga hadli weyday? culimadii waa gardarro garab og
baan leeyahay waxa ay ku aamusan yihiin waxay og yihiin oo raali kala yihiin walaaladood waxay sameynayaan. Okay, abwaanadii baa soo baxay laba abwaan marka laga reebo oo la yiraahdo Yuusuf Shaacir ama Yuusuf Shaacir iyo Hadraawi. Runtii abwaanada ka hadlay waa labada abwaan sababta ay abwaanada kale uga hadli waayeen ee uu Laab Saalax uga hadli waayay ee uu Jeylaani uga hadli waayay ee uu Weersamo uga hadli waayay ee uu Cabdillaahi Xasan Gane uga hadli waayay ee abwaanada kale uga hadli waayeen. Runtiina taa waxaan arkaa inay iyada lafteedana qayb ka yihiin cunsuriyada iyo dhibaatooyinka beelaha Gabooyo lagu hayo inay dusha ka daawadaan ayaan aad u dareensanahay. arrintaasi waa iga guubaabay canaan aan usoo jeedinayo hay-adahan kooban ee civil society ka mid ah hadday culimada tahay iyo hadday abwaanada tahay waxaan leeyahay arrintaa laga hadlo. runtiina waxaan bulshooyinka beelaha Gabooyo usoo jeedinayaa dalka Somaliland la yiraahdo waa dal aynu leenahay waynu ku dulmannahay homeland-keennii baynu ku dulmannahay oo aynu dawladeennii baynu ku dulmannahay oo garsooradeennii baynu ku dulmannahay oo shacbigii aynu la noolayna la dhiigga iyo dhaqanka iyo diinta iyo afka ahayn baynu ku dhex dulmannahay. caqli iyo garaad isaga qabtaana ma laha ayna isaga keen qabtaana ma laha. dawladdii caqli iyo constitution ay inagaga xishoodaan oo ay isaga keen qabtaan ma laha oo idinka arkaya iyagii baaba hay'adihii iyo shuruucdii dalka ku tumanaya. haddaba maxaa laynooga baahan yahay roolka inaga laynooga baahan yahay muxuu yahay waxa laynooga baahan yahay dadka noocaasa marka aynu inagu ku dhex noolnahay waxa laynooga baahan yahay inaynu inagu qacanteena iyo caqligeena iyo afkeena iyo awooddeena aynu muujino oo aynu wax iskaga qabano. waa kow maxaa inoo bannaan haddaba waa kow inaynu samayno mudaharaado ka dhan ah cadaaladda dulmiga oo aynu ka samayno Somaliland gudaheeda gobol iyo degmo kastaba. waan idinku guubaabinaya especially traditional leadership of Gabooyaan la hadlaya waa inaad samaysaan xaq baad u leedihiin waa inaad ku cadaysaan mudaharaad salmiya dhibaatooyinka la idinku hayo. waa laba waa inay international community-ga aad welibana isugu yeedhaan oo aad ka hor mudaharaadaan kuwa internal Somaliland jooga hadday tahay hay-adaha dawladda hay-adaha United Nations jooga waa iga talo. haddaba roolkay ku leeyihiin diaspora community Gabooye arrimaha noocaasa roolka ay ku leeyihiin waxa weeyaan war hadday London tahay hadday America tahay haddii ay tahay Europe ay tahay waxaynu u baahannahay maadaama inagu aynu nahay minority right activities diaspora waxaynu u baahannahay inaynu inagu noqono kuwa cabashadooda gaarsiiya hay-adihii iyo dawladihii awoodeeda lahaa ee xaqa u lahaa. waxa aynu awood u leenahay inaynu sanadba waddan isugu imano oo aynu waddankaa ka mudaharaadno. waxaynu u baahannahay inaynu hay-adaha caalamka iyo dawladaha caalamka ee waaweyn ee especially donorska ee deeqaha siiya Soomaaliya oo dhanba inaynu u cabano oo aynu mudaharaada ka hor samayno oo aynu dadkeena dhibaatooyinkeena waxaynu haynaa dhibaatooyinkii lagu sameeyay. waxaan anigu assessment ku sameeyay ama research ku sameeyay the last 10 years u dambeeyay imika ama 10 sanadood 7 sanadood u dambeeyay dilalkii ula kaca ahaa iyo dulmigii bareerka ahaa ee xukuumadda kulmiye iyo xukuumaddiisu ay kaga sameeyeen beelaha Gabooyo iyadoo documentation iyo documentary oo film aan haya waxa weeyaan aynu ummadda u bandhigno aynu isugu soo baxno haddaynan inagu dadkeena u hadal cid u hadlaysa ma jiro. waa kow Soomaalidan ama Somaliland population waxay nagu xantaan dadkani aqoon ma laha. waad ogtihiin inankii jaamacadaha Hargeysa ka soo baxay ee bachelorka ahaa ee